السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله هوري waxaan uga soo hadlay si guud control panel-ka. Haddaan haddeer search gareeyo control panel oo aynu ku soo sheegnay inuu yahay gaadare si yaro kooban kuugu systemka computerkaaga windowga kuugu yeela inaad isbedelo iyo configuration aad samayn kartid. maanta insha Allah waxa ugu horeeya inuu taabanayno waxa weeye user accounts markaa ku dhufatid waa inuu daaqadan kuu soo saaro naturally window user accounts waxay leedahay administrator haddeer waa kan aniga aan haysto standard userna way leedahay guest userna way leedahay markaa administratorku waa userka wax walba systemka maamula oo haya standardkuna waa kaasu ka hooseeya guestkuna waxa weeye marti weeye marka haddaynu haddeer halkan tagno account typeka haddaynu tagno waxaynu ku haynaa haddeer halkan accountkan haddeer kan kayga administratorka weeye waa accountka wax walba systemka ka maamula standardkana waa samayn karaayo waa kan waa bedeli kartaa typeka marka haddaynu dib ugu noqono main pageka waxaad halkan ka dhigi kartaa haddii aad rabtid inaad standard account kale inaad kusoo dartid manage another account baad leedahay administratorkii adoo ah halkanu ka soo bixin kabacdina add new account baad leedahay waa ku daraysaa markaa wuxuu kuu qaadayaa xagga settingku ku geynayaa daaqada settingka buu kuu soo saarayaa marka waxaad leedahay halkanaad tegaysaa add accountka markuu kuu soo saaro laba option buu ku siinayaa option ah inaad email Microsoft oo Outlook iyo Hotmailkii oo kale inaad ku gashid ama telefoonkaaga ama inaad tiraahid midna intaa ma haysto I don't have this personal sign in information ka inaad tiraahid oo aad ku dhufatid kaas kaagama baahnaanayo email iyo telephone midna kaagama baahnayo currently anigu waxaan ku sign garaysanahay haddana waxaad leedahay add without Microsoft account kaba soo qaado kale ilmaa rabtaa inaad ku dartid halkana kaga daraysaa haddeer masalan aynu nahno magaca ruwayda masalan waxaan siinayaa password baan siinayaa we enter the password password markaa siisid hadhow wuxuu ku waa inaad su-aalahana aad ku dartid sida hadhow passwordka haddaad rabtid inaad u bedeshid ama aad u garan weydid waa su-aalaha lagu furayo aan iska doorto what was your first past name aan iska idhaaho okay okay mid kale aan doorto waa iska mithaal next baad leedahay haddeer waa aragtay local user buu kuu soo saaray oo waa tarweyda marka halkaasa waxaad kaga dari kartaa user aynu dib ugu noqono haddeer accountnadii Allahu musta'an amma tasifuun waa kan account kii ruwayda waatan haddeer wuu sameeyey oo halkan waa inoo haysataa ruwayda haddaad tagtid haddii aad rabtid magaca inaad ka bedeshid waa ka bedeli kartaa waa kan magacii baad bedelaysaa kaba soo qaado kale magac kale rabtaa inaad ku bedeshid passwordkii informationkii typekii iyadoo haddeer waa standard user weeye waxaad rabtaa inaad administrator aad ka dhigtid waad ka dhigi kartaa oo optionkaasaad haysataa oo iyaduna accountkii maamuli kartaa haddaad rabtid inaad masaxdid waad masixi kartaa oo deletion baad samayn kartaa marka halkaasaad accountkii ka maamuli kartaa accountkana markii aad sidan oo kale haddeer waxaan joogaa anigii adminka ahaa halkan aan joogaa adminku kastaba wuxuu leeyahay
file explorerkiisi buu wataa marka hadda haddaan halkan tago C drive-ka haddaan tago users haddaan ku dhufto waa hal user weeye qof kastaba oo profile leh profile-kiisaasuna file explorer siga gooni u ah ilaa uu qofku uu share file uu ka dhiga mooye saas u ahaanaya dhinacan kale waxaa xiga oo isla control panelka user account-ka ka mid ah waxaan soo taabanay magaca inaad bedeli kartid account type-kiisa inaad bedeli kartid account kale inaad ku dari kartid waxaynu ka dhigaynaa haddeer ku xijinaynaa manage credential-kan web credential iyo windows credential windows credential-ku kaba soo qaado kale domain baad isticmaashaa file baad rabtaa inaad share ka dhigtid filekaas sidii aad mar walba serverka aad ula xidhiiri lahayd halkii aad uga baahnaan lahayd mar walba user iyo access inaad gelisid credentialka halkanaad ku save garayn kartaa halkana web credentialkaasuna waxa weeye browser base weeye oo markii aad haddeer emailkaaga gelisid kaba soo qaado kale gmail baa isticmaashay waad save account markaad passwordkaaga gelisid wuxuu ku siiyaa optionka inaad save gelisid halkaas kuugu save garanaya dib ugu noqono user accountkan dib ugu noqono halkan waxaad ku aragtaa cambuurkaas ama oo calaamaadkaas waxay ishaarayaan aynu tagno waa kan wuxuu ishaarayaa user access control Microsoft waxay ugu talagashay arrinkan haddeer meelka aniga halka dhexu ii jooga waxay ugu talagashay markastoo aad computerkaaga aad soo gelinaysid wax kusoo download garanaysid ina ay kuu soo saarto user access inay kuu soo saarto user accesskaas user control inay kuu soo saarto baa lahayn cafan user controlkaas wuxuu kaa caawinayaa waa la taliya waxaad sameynaysay systemkaaga waxaa kugu dhici karaa inaad virus soo hoysid ina aad waxaadan systemkaaga dhib u keeni kara keentid kabacdina wuxuu ku siinayaa talada inaad ka fiirsatid halka ugu hooseeyana waad geen kartaa halka ugu sareeyana waad geen kartaa aninkaygu dhexdhexaad buu joogaa halka ugu soo hooseeya haddaad geysid waxba ogeysiis ku siin maayo halka ugu sareysa haddaad geysidna wax kasta aad taabatid ogeysiiskaas ku siinayo haddeer waad aragtay intan oo dhan waxa uu ogeysiis kaa siinayo waa 40 iyo ka halka ah marka haddeer haddaynu tagno okay wuxuu ku leeyahay user account control yes ama yes haddaad tiraahid wuu ii fasaxayaa no haddaad tiraahid wuu ku celinayaa marka taasna waa taas dhexdaa hay joogo aniga halkaa middleka ah buu joogaa halkaa u daa intaasu insha allah waa inta ugu muhiimsan user account-ka haddii ilaahay yiraaho wabillahi tawfiiq